قضية اللبات إيرعدة وقضية علايس كيدا له بريهنا برها بالشدة آد لو ودودي ضد بدن أي كهلين وذا أي كهلين دل يدبت بتشوجة وقضية دي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه إلى ورسمه هذا الكيسي وهذا دقيستين بانو ملاي أنا أقول مركو رمتش علي إن كهل إن بدن بوحان سو إلي أضع دمان لو ما هاد ليه محلو هاد لا هذا البعض دمان لكن تلفونك يا هذا الكبا يقول بطي وذا إسلامك محاكار ريبي وأديكي دجالمي تشوف فاجن شري مركب النبي وحلقة شيء الدين كي بريان محاكو داري إن لا يستهمي تكتباش إن لا يستهمه أيه تكتي وارنسك علوس محاضرة جونية فرد جونية بيوبها تاي مركان أدو يسوق قاعدي ونديب هذا الكود دقيستينا وداديه كهالله وأن يراها سلوجة سلوجة أن سلوجة درتيت بمحان السيدي كلمة جوناها كقمين لكن بالعشر كمسلم كجوديس حقوق أن كدر إنه ديكتوشينه كده قضب ككوبات وحان ربائنا أمها النقو علماء المسلمين تهيد أنا عندنا بقى عابينين قضية ذا كهل سوداي إن أيدين كدفاعان أفلقات دي شائفة النبي قال له جيستي أي كديديان مسلمين تأي براروشيان كو عربيان أو كو ترترسيان الدين كود الدفاع له أرنتها السكام مهنق بين مضانتها من الربو إن أنكوهس دعوه نيجي جيل شراها يسوي عيل شو هشوا هاسي وحول مركز طبنتهاي أما لا تجو هالليل لو ما كلا تجور يعني جيل مركو عيل كجو ما كي طبنتها أما لا تجي لا دعوه لو ما كلا تجو مركي عيل كجو تو حاشبي نيك شلي إن لولي سلود ديدي نيك اللي جمر تسوري واي أيام مركي جيل عيل كجو شبه أيوه حق لو قليه هدي لا دعوه dhicinteedii ku dagaalankeeda waxa laga rabaa ninkii gaadiid looga diiday hal maal looga diiday zakal laga siin waayay asagoo socota dhil caana looga lisi waayay marka wuxuu markay tobantaay ceel joogto way hadda ama lala togay la dhaco wala looma kala taguuri looma kala tago isugu yimaada bimaana geela in la ilaaliyo la dhaqo waa dan guud weeye dhaqaalihi baa ku dhisan Soomaali baa ku taagan حو يركي مركي إنه دحية حسابات كأ مركز سكوا الله فيرن ما هي هرت جيل هلا شبه ورهلا دعشوا وي هذا وذا دهس وحبضنا النور دحية إن كميدو قضية ذك هذا الشيء هذا كل حن ماي حيا لو حكاها اللين هول أن لو كلا تجينين ولا لو ما كلا تقصوا ما قرطان ماشي أزعد مر هدي دينكي يا رسولكي يا شريعة إني خطر لجليي نيوم والبو كهالله أو الدفاع إسكو ده يقال بقى الله كدقيه حنا جنب دنيا هاي واد ما هتصنت هاي نعرفنا إن الله لا يؤيد بهذا الدين بالرجل الفاجر وذا ده ما أنتو ده ما هالنقطة هذا كتجو وحاسق جارا ما هالنقيا بولشدة دلني يرى لبي يدك باله براه بولشدة آد وقد دجالمي ياوشا كديديي وعذرها كم موجيي مركان دغيستي اما ان دبغلay qalbigay ku qabobay aad bar oo farxa qaliyada in muslimiintu maanta dhalinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeena dura in halka la gaaraan dareenka maanta ay qabaan dhalinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba haduu تضباطني شنتي جري لها علماء لما الله ير إن سياد بره دم بارد كم جورعين نينك بقر كان مدحوينها وفاجر طاغية وحقي ما ياكل با
bulshadu meeshay marayso hadday bulshadu yacti dhaahdo wuu cabsadaa hadday u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqo la og yahay weeye arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabaha ay u kallifo weeye inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa la mida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhallinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga ee ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kallifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhallinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah ha siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan qodobka ii raaca waxaa weeye inaa warsamo hadalkiisu inaan qiimeeyaan rabaa kadibna xugum saaro marka xigtana wadaadaha ka hadlay wax ka khaldan aan tilmaamo marka xigtana waxa idinkaga aadan dadka noocaasoo kale aan tilmaamo qodobka koobaad waxaa weeye ee ku saabsan inaa warsame hadalkiisa togan iyo ka taban bilow iyo dhammaad marka la qiimeeyo la dhibciyo wuxuu xambaarsan yahay in la quursado nidaamka islaamiga ee siyaasadeed la bumbuuniyo la ammaano la bilo nidaamka reer galbeedka siyaasadeed hadalka nuxurkiisa guud markaad qiimaysaynu ka hadlayna bilowga hadalkiisa ilaa dhammaadkiisu wuxuu iskugu jiraa hadal toosoo togan mubaashir baa carabiga lagu yidhaahdaa iyo mid taban af soomaaliya tabni baa la carabigana hayru mubaashir baa la yidhahdaa hadalka togan ee toosan iyo ka tabanba bilow iyo dhammaad markaad isku qiimaysa qiimayn guud waxaa ka soo baxaya maxaa ka soo baxaya waad dhegaysateene anigu 3 goor baa ku ceshaday waxaa ka soo baxaya nidaamka siyaasadeed ee islaamiga inuu quursanayo xaqirayo ama uu daraabayo xaggana uu bilayo wanaajinayo nidaamka reer galbeedka ee westernka siyaasadeed dimuqraadiga mucaasirka ah qodobka asaga waa kufrun fi diin illahi biijmaaci lmuslimiin gaalnimo uu ku dhacay kow iga dhimidda ayada gaalnimada kale hadalkiisa uu xambaarsanaya labaad waxaa weeye inuu inkiray xadiidkii saxiixa ahaa fi saxiixayn ummadduna ay kula kulantay bilqabuuli ay kula kulantay 1200 sano ka badan من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم يا أحاديث فربنا وذكرنيسا ناقصات عقل ودين وحكوت المامي إنا ورسمي وحكوت المامي إنه يا حديث فالساء أو ميلو كيمد أي سنشرين أو شابك لغلا صوبحا عذر دارشدي الدبلوماسي كده السياسي هيدا بي بسد أوسيين وحكوش شيغا إنه حديث كأنه صحيح أوجيه حديث نبي محمد أكتها إنه السجيا نك الضفير حكم كيسو وكفر أصونا على الراجح من أقوالها العلم وإن كان من أخبار الأحد خبر واحد بالله كردجو نك الضفير حديث سجان لفظ جيسا أمام معانيهيسا أصوغ قرنية إنه السجيا هاي نبينا أوليه وكفر لباد أو كردعي كفر صدحات uu ku dhacay waxa weeye hadalka taban laga fahmaya ama daahir bakuwa nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo culimada muslimiintu xaqiray laana xadiidka wuxuu sheegay inuu xaqirayo dumarka in lagu afjigo oo xaq ay leeyihiin laga celiyo dumarka lagu quursado lagu xaqirayo xaq siyaasadeed ay leeyihiin loogu diidayo xadiidku sugaya sidoo asagu uu arkay marka uu aaminsan yahay xadiidka xaqiraada iyo liidnaanta iyo dulmiga dumarka xambaarsan waxa ku hadlay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam taa macnaheeduna waxa weeye suubanuhu asaga kow ka ah wadaadaha iyo culimada xaqira dumarka xaqoodana u diiday afjiga xaq siyaasadeedna sanka kaga dhuftay u diiday suubanuhu la xaqira kaleey salaatu wasalaam waa maxay waa kufrun bi ijmaa'i ahli alqibla hadalka saddexaad kufriga saddexaad inaad sidaa u fahanteen
baan u malaynaya waxaan ka hadlayaa hadalkiisa tooska midka sariixa ka daahirka ka iltizaamka iyo luzuumka ku imanaya intuu waa isku qiimaynaya waxa kaloo ku jira hadalkiisa inaad dhagaysateen baa laga yaabaa qaybaha u dambeeya wuxuu leeyahay waxa la sheegay leeyahay musiiba dhalan iyo balaaya dhalan iyo liibaan daraa dhici haddii dumarka siyaasadda loo dhiibo ama ay taliyaan ama madax noqdaan waxba kama jiraan waa been buu leeyahay halkaana wuxuu dafirayaa oo beenayaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii abubakr nufay ibn alxaarith lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a nabigu ma guulaystaan ma liibaanaan buu nabigaa yidhi asna wuxuu yidhi waa been waxba kama jiraan way guulaysanayaan wax musiibaa dhici mayso isku dhac iman mahayo hawshu waa dhagdhag nabi allow keri of baa lagu yidhi hadalkiisu waa sida si fiican dhuuxdeen baan waa kufri afraad waa kufri iyo gaalnimo afraad wey hadalkaa dib u dhagaysta midda shanaad ee ku dhacay gaalnimada shanaad ee ku dhacay hadalkiisa erayga ugu dambeeya wey wuxuu leeyahay haddii dowlad aan awood ku leeyahay ama aan ka taliya ay istimaado Soomaaliya waxaan ogolaanayaa oo qarirayaa in rag iyo dumarku ay siman yihiin maydan dhagaysanin baan u malay rag iyo dumarku waa siman yihiin waxba uma dhaxeeyo dumarku ragga kama hooseeyaan naaqus ma jiro waa laba farood siman buu leeyahay وهذا ومحي وتقرير المساواة بين الرجال والنساء وكفر أكبر بإجماع المسلمين وأنا في علماء اللي يقول لا يتضباطنيو شنتي قد يدو يسقالك أما طبانك اللي قد لي كفر قاسي وكفر شنادوي كفر لحاد وكتر وحاوي هوين ايدي قاشا هايد انجلا ماركل ku duqowday gaalnimada tincaska ku noqotay ayuu amaan kala dul dhacay aadna u amaanay wa tabjiilu kaafirin kufr inda alfuqaha gaal in la weyneeyo oo la bombooniyo oo ummadii qudwiyo ku dagasho looga dhigana waa gaalnimo madax banaan عند بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية بل وحي قارسين فقهاء ولو سلم على مجوسي تبجيلا كفر ولو قال لكافر يا أستاذي تبجيلا كفر هداد قال وينيسو وكتر معلن كيجي وبرفصور كيجي وأضو وينيني أما ثلاثة سلانة يكم مقنا يسوي وينين كفرت بالله العظيم عند فقهاء الحنفية أنجلا ماركل قابك ويني يسوء بونبوني يمشوا جيي إلى أن كسرتين عن شعل هذا الناقطة أيوه ودي وامحي والتبجيل كافر كفر ما هو كفر بعد هيسان لحظة قال نمو كتيرا إنا ورسمه 6 سنة حتى سيسر بين أوغموسن توبت كين بين بوشيغي مركو لها واربحين تبي بسدسي وحييري وحان كودي معناها حديث كبينتي وي مركز باب الكفر هي تفسير الألفاظ مريسان هي دلالاتك روح هذو قال لي معد كهالله أما إري ظاهر كؤه معنى كهالله كدبنا ومعنى كلا كأولا لا يقبل عند العلماء حديث فالساء وميلو كيمد أوسنشرين أو شابك لغا صباحي أي ضمرك اللي حاقر يا هذا الكيس السريح يسوي ما يسماها وحان كوذا التفسير كيسي معنيه سواء بين عط وكلام دبلوماسيا بردق الليسي عامة الربا إن شفع الله الله أرضه ضدك للقوية للربا إلى أمن كان توبة صريحة وولي مدنك أسقى موجر لحظة كفري أيا أرمرك هذا الكسفير يبرنان كتالا نكي سيقود قدرة أفمدوبا لميل على جموايه ولقيه ليا كفريات كله maxaa muslimiinta kaga aadan muslimiinta waxa kaga aadan ninka asaga ah wuxuu khatar galiyay diinka iyaga wuxuu meel kaga dhacay qadarintii iyo xurmadii shariicada iyada wuxuu qursaday subhanahu naga calayhi salaatu wasalaam waxa waajiba naftiisa in khatar la galiyo meel walba uu joogo lagu beegsado dhalinyarada muslimiinta la hadlaya jilib culusta lama hadlayo laano jilcustu waa igabeen hadday xubinkooda iyo cadkooda goostaanna halkaaba maanta hawshu ma gaadheen
ninka gabay ee geedkiisu nagu soo dumay waa duqayda dhalinyaradan la hadlaya dhalinyaradu waxa waajib ku ah ninka asaga sidoo muqaddasaadkiina khatar u galina naftiisa khatar u galisaan wa ana atahammal mas'uliyata dhalika bayna yadi Allah subhanahu wa ta'ala midaasi waa qodob arrabay qodobka irca waxa weey wadaadaha ka hadlay badankood hagardaama diineed bay idin ku sameeyeen hagardaama diimeed bay idin geysteen waxaan ka ahayn inta anigu dhageystay baan ka hadlayaa sheekh daahir aw abdi iyo sheekh xasan daahir aways faka Allah asrahu waxaad arkaysaa kuwa kuwale ninka waa inuu toobad keeno ayagoon xukumayn waa idab daro iyo marin habaabin ummadeed weey ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay ama kufri ku dhaco ama uu dembi ku dhaco cudurdaarna leeyahay ha toobadkeena macnaheedu maxay tahay waa been caamadaa lagu siraa idinkaa waxaa laydin moodsiinayaa in la hadlay oo xaqi la caddeeyey oo diinka la sharxay oo diinkii la difaacay waa been wey ninku hadduu cudurdaar leeyahay oo ama mutaawil yahay agtiina ama uu jaahil yahay dembiba kuma dhicin muxuu ka toobad keenayaa kufriba kuma dhicin muxuu ka toobad keenayaa ninka mutaawilka ama jaahilka ama cudurdaar kale wuxuu ka soo ka dhigan yahay kaanahu lam yaqa inuusan ku dhicin wax dembi ama wax kufri ah miyaad aragtay nabi maxamed oo saxaabi khaladamay oo jaahila ama mutaawila tub ila allah ilaa gawaanka cidada lidinku ordaya beenta ee geedka saramarada la idin saaraya iska ilaaliya dhagar iyo khiyaano way khiyaanada labaad ee idinka galeen waxa weeye ina warsame in badan oo kamida waxaan tuunsanahay in qabyaalad ay u caydhsanayaan in ayaga kamidana waxaan tuunsanahay in siyaasad ay u fiijisanayaan haddaysan jirin dareenkaygu uusan sax ahayn maxaa kala duway cali wajiis iyo ina warsame cali wajiis oo kii darad lahaa ma aha kitaabka quraanka looma soo dejinin in ummado iyo dawlado lagu maamulo ma aha qaamuus loo soo dejiyay in ummad lagu maamulo hadalka cali wajiis iyo hadalkan ina warsame kee khatarsan inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أولم يكفهم أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذن قرآنك وحالو سودجيي إن أمة نبي محمد لغم ما ملدل يدل يضد يدين با نينك الشلي لها كتابك قرآن كان ماها قاموس لو سودجيي أمة لغم ما ملو شيخ يا عالم بوكوية هاي مساجد كسود ويستان كان هبر قدنا واد في جسن محان مركا كامنه ودا داعدا تاي مش دنيستا تاي ina warsame xukuumaddu ka tirsan yahay iyo amiirkeeda farmaajo ayaa waxay ku yihiin dawlad islaan ah ayagaana ka daray ina warsame wuxuu aaminsan yahay la aaminsan yihiin wayna ka daran yihiin cali wajiis iyo ciidankiisu iyo farmaajo iyo kulligood iyo khayre waa maxay waa hal diro isku mid ah ummadda maxaad u dhakraysaan oo u khaa'imaysaan haddaad cabsatee ma iska aamustaan ila waa lugooye haddii aad badhiraysaan xaqa ma cadaysaan maxaa keenay in laba shay oo isku mid ah bal kala daran kii darana laga aamuso kii tabarta yaraana la fiijisto la cayrsado mindha hawshu waxa weeye miskiin baahee miska la fuwale ina warsamay mindha tun jilicsadeen baa laga yaabaa ama baraha bulshadu bariyahan aad loogu dagaalamo custom laga raadiyo ayaa la qancinaya xogo balaqa loo tuuraya la socda amba diinka waan difaacay yaani waa khalad hawsha ayada dhalinyaradu inay ku katobaan ma
dhalinyaradu inay ku kadsoomaan erayada khaldan ee majara habaabinta ah waxa weeye ee dul sare la meerayo waa khalad ummadda la rabo in lagu lugooyo inaa warsame iyo intuu ka tirsan yahay ku dowladda waa isku mid xilli aan dheerayn buu lahaa laba ka mid ah haddii aniga la yidhaahdo shareecada miyaa lagu dhaqmaa mise dastuurka ay say no soo ma garanaysaa xaggee jiraa ninkiisaa lahaa kii uu warka keenayna waa fadhiyaa cali wajiis waxaa ag fadhiyay markuu sidaa lahaa wadaadkii ixtisaam amiirkooda ahaa ninkii saleebaan muxuu magaciisi bashiir axmed salaad baa ag fadhiyo dhowrahaya warkadaa ma lah soo videogu maydan daawanin qurub nijaasa oo iskaalmaystay oo idinka idin lugoynaya wey soomaaliya waxay tiraahdaa dameero iyo dumar isku dir alle lama dego dadka aad la degantihiinee dowladda idin ah waa isku dir waa isku fir dirkaan ka hadlaya ma aha kii qabyaaladda la socda haata waa isku mabda iyo isku fikir baan ka hadlaya cidday dooni ha noqdeen yaa laydin lugoynin beenna idin sheegin intaa caawa inaan idhaahdo waa rabay ilaahay baana subxaanahu wa tacaala aanu ka sugaynaa dowlad islaan oo quman inuu na siiyo wixii diinka ayaa ka soo horjeedana uu dumiyo baabi'iyo cadowga muslimiinta diinka annagu ha jabo wixii diinka annaga taageersan allaha guuleeyo fariintaydu waxaa weeye axad u maqan diinkiina ma jiro laa culumo walaa waayeli nabadoono dhallinyaraa u taalla hawsha ayada yaan nalooga soo dhicin albaabka iyo furintaa taagan tihiin والله أعلم